asxaabta maanta waa arkaysaan maraqaan ay ka shidantaa hirgaba ihaayo 3 baaquli waaye dalabka maanta aaduu u kululya waxaa rabaa inaa hirgabka isaga damiyo liin iyo maraq waaye waa arkaysaa ko intaan dhan waxaa u dalbaday hirgabka oo uu batay sidoo kale qaris badan oo ay hayso ildadeen leewaay waa arkaysaa maanta aniga kaligii waa dalabkan aniga dalbada xaggaygu ka yimid marka qunfac iyo feera xanuun iyo ugu kacsan marka waxaa go'aansaday in maraq subag leh aan liin ku miirto aan cawo aan isdheefiyo xoogoona waa arkaysaa waa caatoowi cayilkii uu iga degay alxamdulilah marka maanta waxaan dalbaday 3 baaquli maraq ah oo aad iyo aad u qaacayo aad u kulul aad u kala kacsan waa u jeedaan cuno kale ma rabo intaana ii badan marka midba maraa la cabaa maraqan kuleel waaye waxaa ka cabsanaa inaa ku gubto hadhow kale wuu qaacaa dhuunta inaa ka gubto ma rabo kiskisaa uu cabaa haddii hirgab uu ku haayo maraqaa la basaa subaxdii maraq hirtigii maraq galabtii maraq haweenkii maraq aday dhan wada maraq waxaa noqonay marka hirgabka uu baxa qarasta way kaa bixi istaraysku wuu ku daynaa xabeeb haddee ku haysa xitaa uu kaa baaba'aa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay si xun u fisiraa laakiin aniga khalad ma iga ahan waa wax sax ah oo aniga aa go'aansaday subag badan uu leeyahay maraqan waa arkaysaa daawade waxaa rabaa liintaas saas oo mira kadib waa walaaqa subaga si uu hoos u maro qaandada ku cabaa waa u jeedaan subaga bisaa ka rabaa subagaas ayaa ay anfacaayo maadaamuu hirgab badan uu ihaayo marka waxaa idin leeyahay mar walbo maalmahan shalaa u darnin maanta waa roonaa xoogo waa hadlo shalay waa hadli waa inta dhanaa ixirneed hirgab sun ah waa kan ilaahay dadka mukurido marka waxaa leeyahay maraqan anaa dalbaday oo mar walba waa jeclaa yaraantayda maraq waa cabi jir waa lagu soo koriyey hadda kuleel waa uu qaaca inuu ii qabo waa rabaa qaaca adduunka ka baxaya waa arkaysaa hal maraa isku damin laakiin dhibaatada taagana waxay tahay mal isku damin karabo asaasaan u karkaro oo saan u qaacay hadaa hal mar aa cabtid baswa marka markuu qabow asoo qandac aha la cabaa qabow saa'id ma la rabo qandac markuu noho ayaa la cabaa si hergabka loogu hortago hergabka waxaa u roon qofka inuu dhargo iyo inuu maraq cawo wax ka dhaxeeya ma laha inta kale iska daa ama waa dhargay ama maraqa cabi saas waaye asxaabtayda waa arkaysaan dhammaan meel walbaa joogtaan dal iyo dibidda maanta meeshaana noo shidan cunadii toddobaadka waa kanasaniina waa arkaysaan hirgabsuu igu dhacay waxaa ka cabsaday inaa kuma margado oo hirgabka saa'iduu iyaa ma faham hirgabkaas ii soo ducee inuu ilaahay iga bixiyo inuu ilaahay hirgab damba ugu soo celinin in ilaahay caafimaad isiyaa laga soo duceeyo waa arkaysaa aaduu u macee maraq macaan waaye subaga bisaa laga cabaa waa u jeedaa waa qoliyada kale oo i yaala keed waaye asxaabay marka soo dhawaada hirgabka inuu ilaahay ii bixiyaa laga soo daceeyo asxaabta marka hore waa idinku sheegay hirgab badana ayaa inaa isqaras bixiin waa rabaa dhammaantiina laga soo daceeyo caafimaadka ilaahay ilaahay ku suko waa in la isku duceeyaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee walaalaha ah dal iyo dibadda meel walba ay joogaan way isku duceeyaan
alaal isku barina ilaahay hana dhaafo dambigeena hore keen dambe dhammaantan ilaahna wada cafiyo maraqan maanta saddexda baaquli aad dalbaday wax kala marabo saddexdooda rabaa inaa meel saaro macnaa inaan ka dhargo xabeeba ayayso waa dareemi kartaa xabeebtaas hirgabka leh fiiraha xali waa i xanuunay shalay way i xanuunay saaki waa ka soo fiicnaaday waa hadli waa xataa shalay oo xabeeb saa'id ayaa i haysatay fiira xanuunkana hirgab leh keeni kara waa ogtiin iyo soo kale madax xanuun iyo qandha iyo waxaas marka asxaabay warbadaya idinku daalan dalabkeena maanta maraqay ka shadata waa saaxiibkiina cabtooshare kaamirma maxamed amid durdur ayaa nagala socotay nabadgelyo dhammaan macaamiishii Dr. Amiin Samakaal daktarka carruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcadda Taleex ka soo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beeko wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka ah #7 69 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka carruurta waa uu shaqaynayaa weli daktarka